ما صنتها ولا ثلاثة وما صنتها ولا لا ده ما صنتها وأنا كم قلنا فكرة هذه على كثير وأنا قاعد نحبه ونفسه بلادي بقول نقطة قدومية عن ويديو تين نبض عن كل نقطة أو أنا لف برك اللي قاعده وجفت قال كسر جسنا روش شيء سوري بعطوتي أود أنا لم تقال ما يسمى أود وين ضل السنة أفريقيا لو قلت ما مركب وهو رأي أجريسيف كا لي جنب حي دبعت هذا الصعوبة marka la ku celiyo ma la isku dayay in wada xaajood iyo wada hadal iyo isfaham lagu xaliyo madaxdiina hogaamisa oo ina laf ma sameeysan wax talaabo ah oo aad marka cad oo lagu doonayo nabad in la helo marka diiga daadanay la joojiyo idinku xaqiina dhaqsanayo gooni ugu ayaan xubnimadiina xalinaya artada waxaan sida la ogsoon yahay markii ay qolada mayaanuhu ay xukunka qabsadeen jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen gobolka dalka ogaadeen iyada marka qabsatay iyada madax ka noqotay maamulka ka jiray iyada dhistay iyadoo ku dhureysay waqtiga charterkii ku meel gaarka ahaa in dadka aayahooda la weydiiyo aayahooda ay ka tashadaan taas bay ahayd nabad baan ku bilownay laakiin iyada nabadii garan weyday markii ay 2 sano 3 sano joogeen dagaalka iyada bilowday dagaalkana hadda difaac manihin laakiin inaga hujuuma hasa ahaatee nabad waanu ku weynay nabadana waanu jeclaan lahayn waanu cadaynay inaanu wada hadal aanu nabad ku helo xaqayaga aanu doonayna laakiin shuruudii bayna wali Itoobiya oofinin bal adigoo raalli ah qofka aan qaado su'aashiisa idinkoo raalli ah habeen wanaagsan waa Samadoon Radio 9.3 soo sidaa fikrad iyo su'aalba aad u qabto gudoomiyaha xubinka ururka oo nalaf iyo gudoomiyaha ururka arrimaha bulshada ee jabhada oo nalaf habeen wanaagsan National Liberation Front وكويه عقبت أما وحول تاجن إن بلا كلا سومالية قبل كله أي كسر غير جلان هالجن كأولنا أريك هالجن كبير يهمت كلية أما كويس كلية كويك بال صامية أما كويك هي كويس وما سومالية وايه بلا أنا قدومي كحجان كاسي سلاشة وما تنتهي ما هالجن مقعاس هالجن كوح عقبض وكويه مشرو way jiraan dad Soomaaliyeed oo dareenkaas qaba oo magacan u arkay inuu magac qabiil yahay laakiin ma aha magacan waa magac geography ahaan iyo taariikh ahaan loo qaatay si uu sumad ugu noqdo caalamku uu ogaado dadka Soomaaliyeed waa og yahay qadiyadan iyo waxay tahay laakiin ummadaha kale ee caalamka oo laga maarmaynin taageeradooda iyo inay fahmaan qadiyadan in yaa loo qaatay hasa ahaatee ma aha mid qabiila laakiin dareenkaas uu jiro ما أركينا قفكي دونية إنه قضية تاجره حتى مجا قديس إنه كتاجره لأنه وحويان دب عدوة يضب ولا على دجال ما ويان حتى هدو قليل كما جعوار. بل بدونية وقاك هنا برشة سؤال شويدي كل مرة ما يلتاني عالم كله جمره خاصة كان وصلها اعتمادين. لكن الله كل ثندي ما هي نقدين كليه ومط صومالي وتربى ضبعها. dadku maxay u soo qaataan qodobkan su'aashana adiga qolaa weydiiyay maadaama dadkii kamid tahay maxay u soo qaataan arrintan ogaadeen maxaa loo soo qaataa oo qabiil loo gashay bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka waa saxsan waa maasan tahay arrinta kolley annagu de horta qof Soomaali inaan ma taqaana wax ka sheegna ma doonayno laakiin qadiyadu waa qadiyad caan magacuna waa magac juqraafiya taariikhda gal dadka soo qaadanaya laakiin laba baan u kala qaadi karayna qof dhibaatada Soomaaliya hadda qabiilkii magaca markay noqotay ee fool xumaatay ka dhex arkay oo dareenkiisu uusan dhaafisnayn Soomaaliya hadda qabiilada la sheegayo ee qadaayadka Soomaaliyeed iyo soo jireenkii iyo taariikhdii ay ka maqantay inuu qofkaasi noqdo iyo inuu qof dal leh oo cadawgu sidaa uu sheegay adeegsanayo kala u noqdo labada mid uu noqon karo mid baa laakiin ku dari lahaa oo waxay qaadatay magaca masalan hadda la sheegay لكن أنا الصومالي هو دجال من سعده بالصومالي إنه ولا دجال من قفت الصومالي أمرك حق بالله من اللوجله إنه سيس سو كتاجره
iyo inuu isaga laftiisu magacu jecel yahay la yimaado horta cadowga la dagaalamo marka qofka cadowga la dagaalamaya waxaa naga weydiiyo laakiin ka jiifa isu waxba naga weydiinta waay wala luqadno khadka telefoonka habeen wanaagsan Samadoon radio aragtida ama su'aasha qabta hadii loo sheegtay magacaaga magacayga Cabdullaahi Axmed sori Cabdullaahi wallahi dhamaan waxaan kalaanay ragga mas'uuliyiinta stuudiga fadhiyo waay adoo hal si kooban su'aashaada hadii aad sheegto waqti aad u yaraawi okay waxaan su'aal ka qabaa inaan weydiiyo dib hadda ogaadeen oo su'aal aan weydiinayo haddii ay helaan gobonimadoodii ay dib u soo hantaan ma laga yaabaa Soomaalida hadday ay wax la midoobaan ay wax la qaybsadaan dawladda Soomaaliya waaya halganka shacabkaas u dagaalamaya xorriyadoodu waa halgan ay ka talineed shacabkaas markuu xoroobo shacabku waa shacab Soomaaliyeed Soomaalida iyo iyagana waa isku dan wixii Soomaalidan oo aba iyagana dan waa laakiin markuu xoroobo waxay xorriyad u leeyihiin inay Soomaali ku darsamaan inay gooni isu taagaan inay marka ay ka talintooda waa in shacabkan ay ka ayaysa la weydiiyo gudoomiye ku xigeen jabhadan waxay leedahay hoggaanka sheegtay galka iminka haysta waqtiga xaadirka ah wala talinay sanadii ugu dambeysay kulan iyo kulan la'aanba waqtiga hadii dib loo noqdo mar waxaa jiray adigu si shay isbaahid baan filayaa sanado hore sidii tameedii aad tiri waxaan gudoomiye ma laga yaabaa mustaqbalka dhow inaad soo sharaxdo jagada gudoomiyaha ma jirto xasan mar aan anigu iri gudoomiye aan ahay sideedaba ma jirto waxa weeyaan jabhadu waxay soo martay laba gudoomiye Allah yarhamu Sheikh Ibrahim Abdallah oo gudoomiyihii ugu horeeyay ahaa iyo gudoomiyaha Admiral Maxamed Cumar Cusmaan welina labada shirweyne ayaa uu ku socdaa shirweynihii saddexaad weli ma aan qabanin waxa weeyaan anigu mas'uuliyadda aan hayo haddaba mas'uuliyadda aan hayo markii la magacaabay ma aan diidin hadii gudoomiye la iga dhigay haddana la iga dhigin laakiin heerka weli ma aan gaadhin anagu أنا ما دركت إيش صار واي هاي وأنا لا شرحها هبي ونكسر FM سجال شنية سجال اللي بيحسد احتمالون راديو أنا كده يسوي أشياء قطع دي الله شيء طيب مقعد وأنا سأشتغل وحويا عطانا البرشة الصومالية يكون رقم ذلك النرويج وحشرنا لا إلى المكان الصراحة ثانية بدون كثير كتير هذا وحاصل وكلا أو استعلاء إلى ويديو وحنا الشعب الصومالي سنة شروالي كصقي زي يقصد مرحلة سنة هذا أنا نفسي برشة الصومالي لما نور يكون قص مركا شراء الساعة واحد كصقي زي ما كان بدأ بكان نص دوت مركا حاجات هاجرة كجيسة ناس هاجرة ومعنا واي وعد ما صنتها سيكون وعد ما صنتها سيكون بدون هذا ما صنتها وأنا كنت فهمني أدور على وقت هذا وين أوجي واي هذا مضمون هبي ونكسر وأنا فهمنا السياسة هذا أوجد فيه قدام حين هذا ما صنتها تاجرده حويا مد معنوية مورال ماتيريال الله ضبا كي عبدون توه كقريب قال كرايسان هذا كما ماتيريال كماتيريال كهذا كقريب قشوا معنيه كمعنوي هو استبديار لكن كله هو يران وين مورال النتاجر واي هاي وقت يقولون تياد موقوف وبنوجي أنا هذا بلانو لحظة بس القدومية وكان كلمة بالشدة وإسنادية عيقة فدية كل مرة يذكر الله قرآن ثاني هي قدام بيدلك النروي أريبها تصواتين هو قولي ستين سلام قرشينها سيقوما waxaan isleenahay waan ku guuleysanay maxaa yeelay horta dadkaanu la kulnay dad Soomaaliyeed baa ahaa meeshaan nimid dadkii Soomaaliyeed isugu nimidna su'aalahay la yimaadeen iyo afkaartay la yimaadeen waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dareenka iyo noloshaha u soo noqonaya dadkii Soomaaliyeed oo moodid nuurkii Soomaalinimadu inuu dib u soo noqonayo hadda waxoogaa soo ifay way sidoo kale waxaan jeclaa dalka Itoobiya gelinka shanaad ee Soomaalidu degan tahay adigu aad ka timi aad ka mid tahay hogaamiyaasha maamulka oo haye mustaqbalka iyo rajada laga rabo maskaxdooda inay shaqeyso dadkooda ay badbaadiyaan gelinka ay xoreeyaan sidee u muuqataa xaaladiina marka la eego 5 sano ee soo socotay 10 sano horta waa tii aan markii hore ka afeystay dalka Itoobiya ma aha halkaasu gelinka shanaadna ma niraahno waxa weeyaan still waa kii shanaad haduu yahay qayb كو لا بصدق uu ka tirsan yahay dalkaasu Itoobiya way gumaysataa laakiin ma aha qayb Itoobiya kamida waxaan filaynaa inaan 5 sanadood isla gaaraynin Itoobiya
wayna ka muuqataa halka ay khalkhashay waxay soo dhaweysatay kuwii maaragtay nolosha ka dhacay reer ogaadaya jir waa garab oo onelefa waxay soo dhaweysatay qoliyo oo reer 7 sanadood aan urur ahayn oo jir waa urur leeyahay Soomaali galbeed isku magacaabay oo awal horeba ay argagixisay ku tilmaami jirtay ay soo dhaweysay marka waad arkaysaa in Ethiopia ay muxuu ahaa ay khalkhal ku jiro umaleynaan maayo inaan sano isla gaarayno insha Allah way su'aasha kale ugu dambaysan ku weydiinayo dadkan isdiibay aad sheegtay Ethiopia ku isdiibay wadad Soomaaliya atiyan walaalo meelaha ka soo jeeda si wada jira dabcan laga yaabo inaad isku ururahdeen markii hore wada shaqeynayseen dadku kala fikrado way noqdaan ma laga yaabaa in cabiyaad isticmaashaan hoggaan noqotaan oo dib aad u socodisaan maskaxdoodana sheegto qaldan ما أنا وده شقينين ولقيه وحياة هاي يعني يقولون أورو عالمي وهو ديني وهو مبدئي سوى إسلام يعني يقول مركز أساسي شيء جناين مددرنا يجا شيء يعني مددر حرير لهاين إثيوبيا مركز دنبنا يقول عن صدين إنه يحدث ديبان وحاويان وحان لنا هاي عدو صحيح ملهم وحلي هذا ولا عدو ولا شقي وعدو ولا شقي ضدك لينا يا ملهم كاسوا عدو مركز dadku saas noogu qaybsan yahay ugu dambeyntii dadka laafka Soomaaliga ee Samadoon radio dhageysta si toosan hawada loogu jiro waqtigan laga yaabo qaybta kaydka qaar ka dhageysanaya eriga ugu dambeeyo aad ku oran lahayd waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee radio Samadoon dhageysanaya waajibkiina waa inaad gudataan yani waa waajib waa fardul ayn yani inaad maanta taageertaan qadiyada walaalihiin dad walaalihiina waa للايا حبسك أنا قبتين لو سمية لو أديكسنا يا حتى قوة صومالية يا مامولا صومالية إن أقرب استاكتان وأنا واجب دينيا أو صوماليا أو يعني دينا والبا. إيه وقدم بيا بالعنصية قدميها وأنا هذا قدميها وكان كلامها بالشدة محمد عبد ياسين هو يسوق عن وش دايري هذا هو محسن سمدون راديو وحن أنت دوننا شعب الصومالي ننقاسيو warbaahinta ummadda Soomaaliyeed qaybo kamid ah oo aad u fara badan ayaa waxay ku hayaan dibindaabo iyo meel kaga dhac halka ka socda ogaadayga waxaana ka TV-ga la yiraahdo University metal qura hadii aan kaaga soo qaado adduunka iskaasiintiisii iyo soofalkiisii oo dhan waa laga mamnuucay ogaadayga University la xafiis bay ka furatay digdiga way adduunkii kale red cross baa laga helay la qaybta محاسين لو أقلاده يونيفرسيتي وهي كاسي وحا إلى الضاوني من سوجيدنا يونيفرسيتي السؤال إسكحيدو أرنتارا لو ماسي لقدتورا سيدنا وحا يري قدومية هوغانكا أرمها بلشدة أوروكا أو ناس محمد عبدي ياسين ديرانه marka leh marti sharaf sida qaaliga ahay sida aan ula kulnay gudoomiye ku-xigeenka ururka oo NLF Ogaden National Liberation Front mudane Maxamed Ismaaciil Cumar oo booqasho ama hawlo shaqo ku joogay magaalada caasimada oo dalka Norway Oslo shirna ku qabtay maalintii shalay ahayd Oslo ay ka qayb galeen ummad badan oo Soomaaliya oo markaa kamid ahaa dadkii halkaasi dhageysi u tago qaatayna fikrada loo sheegay gudoomiye ku-xigeenka hoggaanka arrimaha bulshada ayaa sidoo kale Maxamed Cabdi Yaasiin diirane waxaan leeyahay gudoomiye ku-xigeenka ayaa sidoo kale gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada Maxamed Cabdi Yaasiin ayaa marti ku hadlanta Samadoon barnaamijka arrimaha bulshada nooca qaybtan yar ku soo qaadanay anagoo runtii ka faafeenayna waqtigu aad noogu yaraa awgii aan jeclaan lahayn in qadka telefoonka dhacaya caawa su'aalaha ay dadku ku weydiiyaan afkooda aan noo turjumin nasiib darrada ay suurtoobi weysay inaan qadkii telefoonka iyo waqtigu aad xiriir noogu ah soo daahida ay soo daaheen marti sharaftan oo iyagu mas'uuliyiin iyo la kulmay madaxda dalkan ka tirsan reer Norway kuwaasoo nasiib wanaag aanu helay dadkii ugu dambeeyay ana aad ugu faraxsanahay oo ku hadlaya magaca maamulka idaacaddan iyo shaqaalaha dadweynaha degan magaalada caasimada ee dalka Norway iyo kuwa FM tan kala xiriiriyay caalamka intiisa kale oo naga maqla internetka Samadoon radio waxaanu idin leenahay nabadgelyo ismaqal dambe toddobaadka soo socda hadii Allah ugu darayo mar kale aad baad u mahadsantihiin